waxa la yiri adduunyada nin nool aragti ku laaban kulleeyde markaad nooshahay in badan kolba wax baad arkaysaa ka yaabiyo magaalada Hargeysa waxa saacadihii la soo dhaafay si xoog looga hadalhayay ay qiimihiisa dad kale ay ku sheegeen inuu yahay $10,000 kaasi oo loo xidhay dirawalka waday gaadhiga jiiday aygaasi haddaba dirawalka arintani ku dhacday oo markii ugu horeysay hadlay ayaa telefishinka Saab uga waramay dareenkiisa ku aadan arintani magacaygu Axmed Nuur Cabdiraxmaan Maxamed waxaana wataa dhaynahan waxaana baxaa degmada Saboonaag gaar ahaan ka tirsan magaalada Leeyahay Badalwanaag habeenada kamid ah ayaa aniga suuqa maraya magaalada oo ka soo baxaya oo maraya halka baar waraabay ay qisadani ku dhacday ka abaara steedii la barkii waxay ku soo baxay ay isiriyaysa ayaan ka soo baxay halka wadada dhexdeeda marka qaar mudoohan qaar cad siigiigu kiciyeen waan istaagay baabuur badan baan hayn waana dhaafay kadib waan iska socday in yar markaan socday ayaa xagga dambe ay iga soo galay bahalkii mid madow rooraya kadib waxaan maqlay gaari uu ka soo go'ay deetana waan jeeray kadib xagga dambe ayuu ka dhaawacay markaan isri wadadii baarkan uga baxay ayaa kadib waxay qabsaday dhalinyar badan oo xaafadda agtagtay bahalka halkii waan isku qabsanay waxay u raadeen halkan joog bahal baad jiidhay deetana kadib halkii markii xoogaa muran badan ka dhashay dhalinyartiis qabsanay cid weyn oo bahalkii qof weynaan ka dhaxarki waayay halkii baan adigu isku qabsanay alaab badan gaariga way saarad bagaash marka kadib uu yimid ninkii bahalka lahaa kadib markii waan is qabsanay uu yiri bahal baad halkan igu jidhay kaalay soo ayaan ku dhigay anigu ay macno garan maaye ay baad jidhay markii halkii xoogaa isku haysanay ina mar xira taraafik sharcigaas ayna kala saaray xira taraafik kadib waan israacnay oo aniga dalbaday inaan xira taraafik tagno oo aan wixii uu bahalkaasi noqdo أنا واحد قرر ما أي معني شيء أنا مرة أنا أقول حرة ترافيك تلفظي. المركل وجي حرة ترافيك إذا ما تستيقظ قابلين سيدنا قابل نوعية الغوشة قدام بيجاجين حال كذا عيدا. هالكا واحد عاي مركي أنا حرة ترافيك تكني أدو ده سجنا وحيري بهالكاسي كتشيري بهالكاسوا بهال قالية وأنت بدك كياني ده مركا أنا ونا رأيي جي ده أنا وأي هانو بنو أركايو ده bahalka diyaanigu ay geesan ma garanaynin kadib halkii markii habeen goor damana wahayd abaara ilaa 8 iyo barkii bahayd oo bigi markii nala kala qoray uu yiri ninkan halay xiro subax ayaa la isku iman doonaa halkii ayaan gaariga ku xareeyay intaad ku xidhnayd halka imse cisha halka ku xidhnayd halka waxaan ku xidhnaa 5 cishaan ku xidhnaa imika kadib markii aad halkaasi 5 cisho ku xidhnayd laguna sheegay inaad eygan u xidhan tahay dareenkaagu sidoo noqday in ay lagu xidhay oo lagu haystay inaad eyga jeeday waliba aad muddadaas ay ku xidhnaato dareenkaagu sidoo noqday والله dareenkaygu aad iyo aad ayaan horta ula yaabana markaad dhinac eegto bulshada reer Soomaaliland hadaan nahay horta meel kasta oo tago waxay noqotay wax la yaab leh oo aan hore loo arag dareenkayga markii dambe waxay noqotay wixii markii saaga waxyaabahan caalamku ma ku maqli jirnay ay baad la dhaqaa ama xuquuq leh xeer taraafigii markii aan joognay cid waliba waa la yaabtay waxaan hore loo arag bay noqotay meel kasta macaaki xafiisyadii iyo markii waxaan hore u dhaceen cid walba waa su'aaladay war waxaan wax hore u dhacay ma yihiin ma ay yiraahdeen xitaa maxaabiistii la xirnay iyaga waan waraystay mid waliba way la yaabay ugu dambeynna waxaa weydiiyay dirawalka inuu bixiyay lacagtii laga doonayay ee qiimaha ayga waxaanu ii sheegay in gebi ahaanba laga cafiyay lacagtaasi isla maantana loo sii daayay gaarigiisa oo in muddo ka xanibnaa waxa ka xaalay intii aan xidhnaa odayaashu si wanaagsan iskaga arkay si wanaag baan ku dhamaatay maanta ayaana la soo daayay alxamdulillah rabbil caalamiin wallahi si wanaagsan ku dhamaatay gaarigaygii maanta ayaan dib helay oo xirta taraafik kala soo baxay waxa la yiri adduunyada nin nool ma aragti ku laaban kulleeyde markaad nooshahay in badan kolba wax baad arkaysaa ka yaabiyo deetani waxay noqotay dhacdadii iigu horeysay ee ugu la yaabka badan leh xamse gelle telefishinka Saab كده مين عكس كده ولا على العكة ده مليدي
mahadsantahay walaalaha. hayo laaban sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay. Ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel, shirkadda dadweynaha.